assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni diblomaasi aynu ku eegayno wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine maanta oo ahayd maalintii 9 ee tan iyo markii dalka duulaanka uu ku soo qaaday Ruushku dagaalka. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu sheegay in 200 oo kun oo carruur ay ku maqan yihiin gudaha dalka Ruushka kuwaas oo laga ururiyay gudaha dalka Ukraine. Carruurtaas ayuu sheegay in u qaybsamaan kuwa ciidamada Ruushka ay kala baxeen xarumaha lagu koriyo agoomaha, kuwa ay ka qaateen si xooga waalidkood, iyo kuwa iyaga iyo waalidkood dagaalku kala lumiyay. Gantaal ciidamada Ruushka ay rideen ayaa la sheegay inuu ku dhacay waddo tareen oo ku taalla gobolka galbeed ee Lviv. Waddada tareen ayaa la sheegay inay ahayd mid halbowle ah oo ay soo mari jireen hubka reer galbeedku ku caawiyo dalka Ukraine si ay dagaalka u sii wado. Gudoomiyaha gobolka Luchesky Sarhay Hadayna waxa uu sheegay in 70% magaaladaas ay gacanta ku hayaan ciidamada Ruushku, halka 10% ilaa 15 ay tahay goobo ay rasaasi ka socoto cidina aanay gacanta ku hayn. Wixii intaa ka soo haray oo noqonaya 15% ilaa 20 ayuu sheegay inay gacanta Ukrainiyiinta ku jirto. Gudoomiyuhu waxa uu sheegay qaybo ka mid ah dadkii deganaa magaalada inay hoy ka dhigteen xarumo hore loogu kaydin jiray kiimikada, halkaas oo ay weli ku jirto qaybo ka mid ah kiimikadii lagu kaydinayay. Waxaana uu sheegay inuu wadnaha farta kaga hayo in dadkaas oo dhan nafsadoodu ay ku xiran tahay hal gantaal oo ka yimaada ciidamada Ruushka. Gudoomiyaha gobolkaas ayaa dowladda Ruushka waxa uu ku eedeeyay in ay magaalada gebi ahaanba doonayeen inay burburiyaan sidii Mariupol oo kale, isagoo sheegay hore inay burburiyeen warshadii kiimikada ee Azot. Sidoo kale maanta ay burburiyeen cusbitaal ku yaala magaalada kale Lviv oo ka tirsan gobolka. Akaademiyadda Culunta Dagaalka ee ku taalla magaalada Washington waxay sheegtay in ciidamada Ruushka ee ku sugan gobolka Kherson ay gacanta ku hayaan ay haysato dhibaato isgaarsiin. Maalinimadii doraad ayay ahayd markii dowladda Ruushku go'aamisay in la joojiyo dhammaanba isgaarsiinta gobolka laga isticmaali jiray lagana lahaa dalka Ukraine, iyadoo u samaysay isgaarsiinta Ruushka in laga isticmaalo wixii hadda ka dambeeyay halka. Waxaase la sheegayaa isgaarsiinta Ruushka maadaama ay tahay mid ku cusub gobolka, aadna uga durugsan inaanay ku wada filnayn inay gaarto gobolkaas oo dhan, una baahan tahay in la sii xoojiyo. Kaniisadda Ortodokska ee Ukrainiyiintuna waxay sheegeen 3 wadaad oo mid ka mid ah ay tahay haweeney in lagu dilay kaniisad ku taalla bariga dalka Ukraine, taasoo ay ku eedeeyeen ciidamada Ruushku inay kaniisadooda gantaal ku dhufteen. Wasaaradda dhaqanka ee reer Ukraine waxay sheegtay inay diiwaan gelisay 367 dembi dagaal, kuwaasoo ay dhammaanba wada geysteen ciidamada Ruushka ah, iyagoo baabi'inaya xarumihii dhaqanka iyo taariikhiga ah ee dalkaas iska lahaa. Waxay wasaaraddu sheegtay inay diiwaan gelisay in ciidamada Ruushka ay burburiyeen 29 muusim, 133 kaniisadood, 66 tiyaatar, maktabado iyo xabaalo Yuhuudda lagu aasi jiray. Dowladda Mareykankuna waxay sheegtay inaan dowladdaas ka leexan istaraatiijiyadeedii ahayd inaanay dagaal foolka fool la gelin dowladda Ruushka, balse Mareykanku uu qaadi doono weeraro dhanka isgaarsiinta ah, waa waxaynu u naqaano cyber attack. Waxayna sheegtay taa inaan loo qaadan doonin in Mareykanku ku soo biiray dagaalka, balse waxaynu sugaynaa waxa dowladda Ruushka ay ka tiraahdo. Dowladda Ruushka ayaa oran karta Mareykan oo dagaal waa dagaal, ama internet ka soo qaad ama ciidamada Ukraine keen. Diblomaasiyadda. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa goor dambe maanta la filayaa inuu magaalada Washington kula kulmo xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO. Labada hogaamiye kulankooda ayaa waxa uu noqonayaa gebi ahaanba mid laga hadlayo dagaalka ka taagan dalka Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov waxa uu sheegay inaan dalalka khariijka Carabtu aanay qaadanayn cunaqabateynaha la saaray dalka Ruushka. Dhawaanna uu sheegay inuu la kulmay dowladaha madaxdooda. Waxa uu sheegay dowladaha iska diiday inay u hoggaansamaan cunaqabateynta reer galbeedka inay ka mid yihiin dowladaha Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Imaaraadka. Wadaadka ugu sarreeya kaniisadda Ruushka ee Ortodokska waxa uu sheegay in dowladda Hungary ay tahay dowladdii ugu dambeysay saaxiib rasmi la ah dalka Ruushka, taasoo indhawaalaba hortaagnayd in cunaqabateyno cusub la duldhigo dalkaas. Haweeneydii horey Chancellorka uga ahaan jirtay dalka Jarmalka Angela Merkel oo ahayd mid indhawaalaba ka aamusnay dagaalka Ukraine, laguna canaananayay lana garan la'aa sababta aamuskeeda, ayaa maanta hadashay kuna tilmaantay dagaalka Ruushka uu ka wado gudaha dalka Ukraine inuu yahay mid nacasnimo ah.
waxaynu ognahay muddadii dheeraydii jansalorka dalka ka ahayd in dadka jarmalka qaarkood ay ku eedeyn jireen inay madaxweynaha ruushka la tahay saaxiib dhow. aqalka sare baarlamaanka dalka Ireland ayaa maanta u aqoonsaday duulaanka ruushku kusoo qaaday dalka Ukraine inuu yahay xasuuq. Ireland ayaa noqonaysa dowladdii labaad ee u aqoonsata duulaankaasi inuu yahay mid xasuuq ah, inkastoo Ireland aan siyaasad ahaan saameyn weyn ku lahayn adduunka, qayb ka midana ay ka tirsan tahay boqortooyada Ingiriiska. dowladda Denmark ayaa la filayaa inay kusoo biirto siyaasadda difaaca ee midowda Yurub, taasoo ay ka maqnayd 30 sano ugu dambeysay. haddase Denmark waxay ka mid tahay dowlado badan oo baqdin ka qaba ruushku inuu soo weeraro, sidaa darteedna doonaya damaanad qaad nabadgelyo. dowladda Denmark ayaa sheegtay maalinimadii shalay inay afti weydiinayso dadkeeda, waxaana la qiyaasay 70% in ka badan inay u codayn doonaan in looga baahan yahay dalkooda yar inuu ku biiro qaabka difaaca ee midowda Yurub. caawinaadda military. dowladda Mareykanka ayaa meel marisay $700 milyan oo hubayn cusub oo la hubeynayo dalka Ukraine ah, kuwaasoo ay markan ku jiraan artilleriyada meelaha fogfog gaara kana dagaalami kara in ka badan 80 kilomitir. artilleriyadaasoo buuq durbadiiba ka dhexdhaliyey dowladaha Ruushka iyo Mareykanka. $700 milyan Ukraine hubka lagu siinayo waxaynu ka samaynay fiideo kumbuleed oo inoo diyaarsan. fadlan ku noqo muuqaaladeena kana daawo halka hubkaasi waxa uu kala baxo. dowladda Jarmalku waxay ballan qaaday in ciidamada Ukrainiyiinta gacantooda gelin doonto qalab difaaca cirka ah iyo raadarada lagaga hortago madaafiicda kugu soo maqan. dowladda Ruushku waxay cambaaraysay tallaabada dowladda Mareykanku ay ku guddoonsiisay ciidamada Ukrainiyiinta ah madaafiicda goobta kuwada dhaadheer, waxaana sheegtay dowladda Ruushku tan inay tahay Moscow u qaadanayso in dowladda Mareykanku dagaalkaasi ku soo biirtay. dowladda Mareykanka ayaa ka fiirsanaysa inay ka iibiso Ukrainiyiinta drone-iska la yiraahdo MQAC, kuwaasoo awood u leh inay qaadaan gantaalada Hellfire masalka la yiraahdo. dowladda Mareykanka ayaa doonaysa in Ukrainiyiintu gantaalada Hellfire-ka kula dagaalamaan dowladda Ruushka. waxay iga xusuusina gantaaladan Hellfire masal inay yihiin kuwii ugu badnaa ee Mareykanku u adeegsan jireen inay ku burburiyaan dalalkii Afghanistan iyo Ciraaq. dhaqaalaha. dowladda Ukraine waxay sheegtay in sanadkan qabadigii la soo guray ku dhawaad 20% oo isdhimayo, keliyana sanadkan la soo ururin doono 19 milyan oo tan, halka sanadkii hore dowladda Ukraine ay soo ururisay 30 milyan oo tan. dowladda Poland waxay sheegtay inay caawinayso inta karaankeeda dowladda Ukraine, waxaana ballan qaaday inay tuulo ciidamada Ruushku ay hore u burburiyaan gebi ahaanba dhisto, dadkeedana halkaas shaqo uga abuurto. ugu dambeyn daawadayaal, kubaddii oo la siyaasadeeyey. xulka qaranka Ukraine ayaa xalay waxa uu ka badiyey xulka Scotland, ciyaartaasoo ku gabagabowday 3-1. ku guuleysiga ciyaarta ay ku guuleysteen ayaa waxa uu fududeeyey inay toddobaadkan la ciyaari doonaan Wales. haddii ay Wales ka badiyaanna ay ka mid noqonayaan dalalka ciyaari doona 2022 koobka adduunka lagu qabanaya Qatar. markii ay ciyaartaasu dhamaatay ayaa tababaraha Ukrainiyiintu waxa uu sheegay tanu inay tusaale u tahay dadka Ukrainiyiinta ah oo iyagu caadaystay in ay dagaalamaan ilaa inta dhibic dhiigooda ku jirto. sidoo kale madaxweynaha Ukrainiyiinta Volodymyr Zelensky ayaa sheegay guusha xulka qaranka habeennimadii xalay ay guuleysteen inay niyadda u dhisi doonto ciidamada ka dagaalamaya furimaha hore. waa Yurub oo marna dimuqraadiyad ku faanta, marna kubadda ankee siyaasadaysa. waxaynu ognahay inay hore u samaysay Yurub inay joojisay dhammaanba kooxihii kala duwanaa ee Ruushka ahaa, kuwaasoo aan iyagu dagaalkaba qayb ka ahayn. sidoo kale waxaynu ognahay tenniska in laga mamnuucay in laacibiinta Ruushka ay ka ciyaaraan Wimbledon-ka Ingiriiska. reer galbeedka ayaa markooda hore ku faana dimuqraadiyadda, marka iyagu ay doonayaanna ka baxa. waxaa jirtay 1998 in Mareykanku doonayay in laga saaro gebi ahaanba dowladda Iiraan oo ahayd dowlad u soo baxda xilliga inay koobka ka qayb gasho, inkastoo markii dambe laga diiday loona ogolaaday Iiraan. haddana waxay ku tusaysaa dimuqraadiyadda reer galbeedka iyo inaanay ahayn dowlado waxba kala saara. daawadayaal, intaa waxaynu kusoo gabagabaynaynaa xogihii aynu ka soo ururinay gudaha dalka Ukraine wixii ka dhacay maanta oo ahayd maalintii 99aad. wixii xogaha kusoo kordha waxaad kula socon doontaan xogaheena soo socda. fadlan muuqaalka laygareeya, ku xirnaada kanaalka mahadsanidin.